إذا عنب كبيرة مكين عليني إذا عنب كبيرة مكين عليني العذار كسيماني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري وذا خيارة شرفت له مقعي عبد الله جنك جلس عتنا وعبد الله فلوس فضل داك عصب جنالك يسر سبسكرايب إلا قريب أفكار يقولها كونتك ومالك لأي برنامج عصب يقوم عصب ما أنت واحد جوجنا بروقلي وقياستي 20 كيلومتر وجدا دقمة عرمو دلحيس أيام سؤال لي يذكر وانا رد الحيس دونتان دقان كان وبيرلي أنت أقول بدن بيرا ياله سيدو كلام مقالة أي جدو بروقلا يهضوير لكن بروقلا وحلا لها عيلشان يبيرهن وانكود الحيس دونا وانا ينتسو دونا إلى صعدة. You ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's flow for now. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're. الحيس ونكسر أصحابي ولي وحكو سوقنا بيرها برخلة وبيرها أدو عجيب بدن وحكو يالا دير فرا بدن وكلا دوان وقدار يدير كلا يعوص يوحيالا فرا بدن وانا هلا كسو كوبي كريم إن كستان هدا ميشان أن جوغنو أيسان ولي تمرتي dhirtaan igu beegan oo dhan waa geed timireed wali timirti ma aysan bixin xilligeedii maahan laakiin markii timirtu baxdo waxaan oo dhan markaa joogto dhirtaan oo dhan timir baa haysata sidoo kale liinalaanta liin balbeelmada qaraha xamarta waxaan ka bixin male waxa ka baxa dhir aad u fara badan oo deegaanka iyo dalka kulli anfac ugu fadhiya dad badan baa muruqooda ku bixiya halkaan si ay uga sameyn lahaayeen beero aad u qurux badan oo bilicda u wanaagsan sidoo kale lagu dalxiisi karo dadka ku nool deegaanka Carmo oo degmada Carmo oo 20 kilomitir jida halkan jimcada iyo khamiista wuxuu yimaada dalxiis caruurta haweenka dhalinyarada waxay wadaan beerahan meelo kala duwan oo qurux badan baa jira waan tagi doonaa ila socda. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's flow for now. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. ولي أصحابي بيري برخلا ينقض الحيسنا هذا واحد هوستاجنا هيجيد قنبقة وينتس دونا beertan aan hadda joogo qumbaha ku yaala maaha mid dhow meel sare ku yaala kaamirada ku dhow doona asxaabay waa ka qumbihi geedka xabad baa ku taala intii ugu badnayd waa laga goray laakiin dhirtu way badan tahay kaasna wuu ku yaala ka kalena wuu ku yaala marka eeshan waxa la is oran karaa waxa ka baxa dhir kala duwan oo awal aan deegaanada
aan ka bixi jirin deegaanada Puntland aan ka bixi jirin baa beerahan ka baxa wada fara badan geedkan asxaabi waa leendhanaan cunada lagu darsado laakiin wali mira kama bixin waxaan idin tusi doonaa isagoo mira ka bixeen oo beerta ku yaala qaybo kamid ah beeraha qaybta laba gali karo sababtoo ah waa dhooq waa ku dhageysaa ciidu halka waxa ka baxday waa bambanooni dhir badan oo bambanooni ku taal hadda inta inoo muuqato waa bambanooni xagga marka u gudubto hala waxa ka baxday yaanyadu qayb waa bislaatay qaybna wali ma bislaan caadi bay kugu dhageysaa baan ku ciida caadi kugu dhageysaa dhiiri baa toos u galaysaa hadda ku socoto laakiin beelaha qalaylka aan u baxaynaa si aan ugu socono beertan aan dhirta u burburin aan meesha loogu talagalay aan maro asxaab badan bay la socota iyaguna beerta dhinaceeda taagan yihiin garkaasa halkan basbaas ka baxay soo jeedaan basbaas badan ka baxay aad iyo aad xabad ayaan ka goosan doonaa qaybta waa sare dhulka ku dhacda laakiin mid qoyan oo fiican kan ayaan maanta qaadan doonaa halkan waxa ka baxay waa basashi ay qoyan tahay aad bay dhulka ugu aasan tahay soo jeedaan oo ta hoosteeda balkan ayaa la goynayaa ka bacdina ciidda ay ku aasanta basasho halkaas laga soo baxaya marka asxaabay waa taadaan fiisku guudin tuso ee basashu inta ay ku taadsan tahay ama ay ka baxday sida canabka beera ama kayn caleelni sida canabka beera ama kayn caleelni العقار كسيماني عاديو قرلوغوي أكوكي كويالو أو شغار ديتو داغن باتي مالي wanaagsan asxaabay wali waxaan ku suganahay Baroqle iyar baan beerihii dhinac uga soo baxnay aan ku talxiisanay meel baan nimi waan qadaynay halkaan joognaa asxaabta kalena halkaan fadhidaa marna insha Allah ka baxaynaa waxaan ku noqon doonaa beerihii down with you let's take it slow who cares where we gotta be you know you'll have a good time wherever you're with me let's take it slow waan idin salaamay asxaabay mar kale xaafadda ayaan ka soo baxnay waan soo qadaynay halkaan ayaan rabaa inaan seexdo asxaabta kalena dhirtaas seexatay iyo geedka labada geed bay kala seexdeen way hurdaanin ana waxaan rabaa halkaan inaan ka dhaco aan sii gobladay waxaan rabaa layrtaan qabowga ah iyo geedka banaankiisa inaan seexdo aan dhageysto jabaqta shimbiraha iyo bahalaha kale baalaleyda ah oo meeshaan jooga sababta dhulku waa sidaas hadaan baangaroonka idinku duwo ama dhaagayga waa sidaas meel kasta geed baa yaal sidoo kale waxaa dhacaysa leen qabow maasha Allah halkaasaan rabaa inaan ka dhaco seexdo ila socdo sida canabka beera ama kayn caleelni sida canabka beera ama kayn caleelni العقار كسيماني عاديو قرلوغوي أنا أقدمي وحبالشة دقمة عنه عبد العزيز معالي حمود waxaan saaka 2 saac subaxnimo ka soo baxnay taariikhuna waa 12 bisha koowaad 2022 iyo waxaan u soo anbabaxnay safarkeeda daarana inaan u kurgalno soo dalxiisno deegaanka Baroqle ee ku wanaagsan dalxiiska ku wanaagsan beeraha deegaan horumar ka socda ayaan ku soo dalxiisnay wixii aan soo aragnay iyo wixii aan xog soo helay
runtii waxaad ka arki doontaan shaashadaha ka arki doontaan halkaasaad kala socon doontaan ujeedkayga wuxuu ahaa inaanu baahino horumarka deegaanka ka jira iyo quruxda iyo bilicda tiim baanu ahayn ka shaqaynaya barnaamijkaas isku xiran galab wanaagsan asxaabay gobolka ayaa noogu dhacay hadda waa 5 galabnimo waxaan ka soo baxnay Boroqle waxaan u soconaa degmada Carmo oo 20 kiiloomitir noo jida waxaan leeyahay galab wanaagsan